guudaan kubadda cagta waxaa jira wakiilo kuwaas oo lagala hadlo ciyaartooyda marka la iska iibinayo ama la soo iibsanayo. wakiiladaas waxaa la galaa heshiis u dhaxeeya ciyaaryahanka iyo kooxda waqtigaas iibinaysa. dalkeena Soomaaliya marka la joogo way ku yartahay xirfadaasi, waxaana macquul ah in ciyaaryahanka si toos ah loola xiriiro kadibna isaga iyo kooxda uu markaas rabo inuu ku biiro wada hadlaan. waana sababta aan inta badan loo ogaan karin qiimo ahaan ciyaaryahanka inta lagu iibsaday iyo mushaarka uu ka qaato kooxda. balse waxaa jira shakhsiyaad waqti galiya xidigaha da'da yar ee garoomada xaafadaha, salaxyada iyo tartamada kala duwan ee aan rasmiga ahayn xidigaha jooga soo saara, kadibna waxay u bandhigaan kooxaha qaar ee horyaalka Soomaaliya si ciyaartooydaas mustaqbal fiican loo siiyo. tani waa sheekada Cabdullaahi Macuud Shidane, mid ka mid ah shakhsiyaadka soo saaray ciyaaryahanno magac iyo maamuus ka sameeyay kubadda cagta dalka. Cabdullaahi Shidane waa shakhsi jecel inuu soo saaro xidigo mustaqbalka anfici doona qarankeena, wuxuuna wax badan waqti galiyay garoomada bacaadka, salaxyada iyo xaafadaha ciyaartooyda kubadda cagta ku ciyaara. Shidane saddexdii sano ee ugu dambeysay wuxuu soo saaray ciyaaryahanno matalaya degmada Xamar Jajab iyo kooxda Geeska Afrika oo wax badan ka bedelay marka loo fiiriyo qaab ciyaareedkooda dhanka fahamka garoonka. waqtiga uu galiyay degmada Xamar Jajab natiijadeedu waxay noqotay in labadii sano ee ugu dambeysay degmada Xamar Jajab ay soo gaaraan wareegga afardhamaadka tartanka degmooyinka gobolka Banaadir, halka uu Geeska Afrika ka saaciday ku guuleysiga horyaalka heerka labaad ee Somali Division 1. Cabdullaahi Macuud Shidane iyo xidigaha uu soo saaray Deeqo Macalin Tore, Cabdirashiid Rashka, Ibraahim Mascuud, Maxamed Xuseen Moonke ayuu soo saaray. Shidane bandhig ahaan xidigahan ayaa wacdaro ka dhigaya tartamadii ugu dambeeyay ee degmooyinkooda iyo kooxooda ay mataleen. inkastoo uusan ahayn wakiil rasmi ah diiwaan gashan, haddana mar waliba ayuu juhdi geliyaa soo saarista iyo in fursad la siiyo xidigaha da'da yar ee dalkeena. waa kan isagoo ka sheekeynaya sida uu kooxaha ula xiriiro iyo ciyaartooyda uu soo saaray. Cabdullaahi Macuud Shidane waqti gaar ah ayuu maalin waliba geliyaa daawashada ciyaaraha salaxyada ee laga ciyaaro garoomada magaalada si uu u helo xidigo fiican oo qaranka wax u qaban doona, kuwaasoo inta badan tusa bulshada qaybaheeda kala duwan. ciyaartooyga waa inaad akhri kartaa oo aad fahmi kartaa baahiyihiisa. aniga intaas waxaa igu fudud ciyaartooyga fahmi kara, akhri kara. ciyaartooy waxaa jira oo xirfadooda oo meel ku soo bandhigaan waayeen oo jaanis waayeen, aan u arkay inaan jaanis sii karo. saas ugu fudud marka inaan ciyaartooyga aan kooxaha ku xiran soo wado. wallahi ciyaartooyga waxaan ku xiray kartidooda, ragnimadooda ku xiray. aniga ciyaaryahan walba arkay waxaa waaye kubaddiisa aan ku qiimeeyaa. maalin kasta garoomanka tagaa, garoomada salaxyada, garoomanka waaweyn, tartanka iskuulada ciyaartooyga soo xeshaa. ciyaaryahan walba fiican arkana waa soo wada, waa dhiirigeliya, kooxdaas ku geeya markaas kooxda u baahan. ilaa hadda nayaal badan ku xiray sida Geeska Afrika oo aan macluumaad ka hay oo ciyaartooy u badan ku xiray, iyo Deeqo Macalin Tare oo nin leeqaan ah oo kooxda Jeenyo ciyaaray, iyo Cabdishakuur oo MCC golaha labaad ku ah. laakiin rag kale si u badan yihiin Geeska Afrika keen. waa qorshe oo ku jira hadda tartanka degmooyinka ugu soo food leh. waa rajay insha Allah ciyaartooy oo ayakana xaafadaha ku jira inaan soo bandhigo oo kooxaha weyn aan ku soo xiro sida ciyaartooyda hore kooxaha hore ugu xiray. waana mashiin u baahan in laga faa'iideysto si loo rumeeyo riyada ah in la soo saaro xidigo wax badan u qaban doona qarankeena Soomaaliya iyo kooxaha ka ciyaara horyaalada kala duwan ee dalka.